gudoomiyaha dalada heer qaran ee dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Cabdicasiis Siciid Saalax gudoomiye saad ka warqabto ama baraha bulshada waxa ku soo badanaya dhalinyaro reer Soomaaliland ama meelo kale ba ka tagaane oo la soo dhigayo oo dadka ka shaqeysa waxana magafayaasha Liibiya iyo dhulkaasi inta saxaraha jooga ay muuqaal ka soo duubayaan argagaxle si ay dadkii eheladii uga dalbadaan lacagta qofkaasi lagu sii deynayo awalna waxay ahaan jirtay telefoon maadaama aad tahay mas'uulkii ugu sarreeyay dhalinyarada Soomaaliland maxaa idiga meel yaala se wacyigelinta aad farasa waalidka dhalinyaradu maxay tahay way bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn bahda Universal TV aad baan idinku mahadnaqayaa waan salaamay Ramadaan Kariim wallahi waa dhalinyarada halka ku dhiban horta waan eheladooda waxa la qaybsanaynaa dhibaatada iyo murugada haysa iyadoo aynu ognahay in dhibaato laga carraa aanay jirin haddana marka qofkii waxaasi ku dhaco in wax lala qabto oo la garab istaago mooyaane horta in la dhaliila way yar adkaanaysa damiir ahaan bay yar adkaanaysa saddex qodob baa halkan walaal inooga muuqda qodob waa ka waalidkii iyo qoys ahaan ubadkii in laga warqabo oo lagu daba joogo oo laga warhayo oo ma garanaysaa ilmihii wuxuu xaq u leeyahay barbaarin habboon in iimaankiisii iyo caqiidadiisii la dhiso xaq u leeyahay in qof ilaahay yaqaano uu noqdo ayay looga baahan yahay waalidkii inay dadkii cunto la siiyo ma habboona marka waxaan leeyahay waalidow ilmihii hoos u eega waajibaad kala jira aan ahayn quudinta oo ah sidoo ilmahani u fakirayo caqligiisii caqiidadiisii diintiisii waxaasoo dhan inaad dhisto ayaa loo baahan yahay si ilmahani uu noqdo qof muwaadina dalkiisa jecel ku kalsoon wax kala soo bixi kara aaminsan xukuumadana waxa iyadana rool bay leedahay oo runtii muhiim ah waxa weeyaan faraha ka baxday imika tahriibka faraha ka baxay networks baa jira ama isku xidhaa jira ilaa Ethiopia Suudaan Liibiya isku xidhan ilmihii yaraay Hargeysa dhex joogay ama Burco dhex joogay ama magaalooyinka waaweyn Boorama dhex joogay inta aadir la qaado ayaa dhammaan la kofar gareynaya ama la daboolaya baahiyaadkiisii haday tahay kiitar socdaalka haday tahay cuntadii haday tahay halku seexanay ilaa intuu Liibiya ka gaadhayo maalintuu Liibiya gaadhna waxa la doonayaa lacagtii inta la soo dalaco in waalidkii la lacagtii soo dir waalidkii laba markaa u kala baydhayayo waalid awooda ama guri ha iibiyo ama gaari ha iibiyo ama jaga ha iibiyo waalid ila waxa weeyaan waa khasabe waalid bixiyo iyo waalid aan haynba oo amaah tag oo baahi iyo dad ururis iyo qaaraan gala kuwan dhiban markaa waa kuwii waalidkoodu aanay meel allaalay meel lacagta ka doonaan aan ahayn nimankana markay ku raagaan wixii kharash gareeyeen imika waa ta keentay in iyagoo la cadibayo oo jirdil lagu sameeyo in heerka la soo bandhigo marka waxaan leenahay dawladdu waxay u baahan tahay inay wax ka qabato waa in sirdoonku wax ka qabto nimanka caruurta kaxaynaya shabakadahan caruurta kaxaynaya waa in wax laga qabto waa in sharciga la hor keeno waa in dawladaha jaarka aan leenahay masaalix bay naga dhaxaysaa dabcan waa in sidii loo baabi'in lahaa magafayaasha iyo isku xidhadooda waa in laga wada shaqeeyo waayo maanta waa aragtaa waxa weeye waa arrin heer qaran imka soo gaaraysa dawladana taasaanu ku leenahay waa waajib idin saarnay waa in sirdoonku ka howlgalaa waa in dalalka jaarka aan lagala shaqeeya waa in arrintaa wax laga qabto waa arrin muhiima ka soonyo ahaan arrintaas in badan baanu ka wacyigelinayna dhalinyarada muuqaalaanu ka duubnay fiidiyoyo wacyigelina waan ka samaynay kulamo gobolada baanu qabanay barnaamij baa jiray beriyo dhaweyd aanu hay'adda care la tijaabinaynay oo la odhan jiray aamin dalkaaga barnaamijkaas waxaan doonaynay in number 1 horta dhalinyaradii wacyi ku filan laga siiyo xog ku filan laga siiyo dhibaatooyinka uu leeyahay socdaalkan aan sharciga ahayn 1 Yurub inaanay ahayn markaad tagto inaad guuleysatay ee Yurub lafteeda dhibaatooyinka halkan aad ka cararayso qaar ka sii culus inay yaalaan in tacab iyo waxa weeye dadaal iyo nolol adag ay taalo aan oolin ha iska eeganina walana dhalinyarada guryahan dhaadheer iyo dhulkan greenka ah tacab iyo dhidid bay ku dhiseen reer Yurub maaha waxayaan
fadhi iyo magaranaysa wax maahan iyo dee magaranaysa ilaahay la jeclaaday tacab baa dee ka horeeya mar walba nolosha marka la horumarinayo marka eeg raggana way ku tabceen inay wadankoodii dhistaan aabayaashood iyo awowayaashood baana u tabcay adigana waxa weeyaan dee waxa ku sugaya caruurtaadii baa ku sugaysa jiilba jiil buu sii dhaxlayaa marka jiilba inuu jiil wax uga tago inuu qofku ku hamiyo ayaa wanaagsan marka aamin dalkaaga 3 qodob ahaa in dhalinyaradii la wacyi geliyo oo xog la siiyo in sharcigii uu qabto qof dadkan dhalinyarada tahriibinaysa inuu heer la maxkamadeyn karo oo sharci loo helo baarlamaanka laga ansixiyo sharciga daraaf weeyaan baarlamaanka hor yaalla in la ansixiyaan ayaanu iyadana doonaynaa inaan u sheegno baarlamaanka waajibka ka qabsadaan baarlamaanka waxaan leenahay sharci dowladda dabada ka riixayso iyo mid idinka daniida ku jirta mid hay'ad yar riixayso un maaha inaad mushaar kuma qaadataane waxay mushaar ku qaadanaysaan ummaddan wixii baahideeda iyo dhibaatadeeda shuruucda ay u baahan tahay inay kaga baxdo baahiyaha nolosha ayaa loo baahan yahay inaad aasaastaan inaad research iyo xog ururin ku samaysaan islamarkaana ansixisaan bajad badan baa kaga baxa taxpayerska ama dadkan cashuur bixiyaha salariga baarlamaanka iyo kharshaadkiisa dee waxa weeyaan haddaad eegto shuruucdii la ansixiyey intii u dambeysayna dee runtii iyaduna waxay u baahan tahay in la baaro marka waxaan leenahay sharciga ummadda iyo bulshadu u baahan tahay dabada ka riixa waajib baa idinka saaran shahar baa ku qaadataan waa la idii soo doorto xildhibaanaha ku tihiin muddadii la idii soo doortay iyo ka badanba waa fadhidaan markaa ummadda in la jecleeyo oo marba baahida taagan ay noqoto waxaan laga aamusin ama sheeko lagu dhaafine wax ficil lagaga jawaabo inay noqotaan baarlamaankan u sheegana annaga ka soonyo ahaan waanu wadnaa insha allah in dhalinyaradii kor loo qaado soonyo iyo ururada hoos yimaadaa waxay leeyihiin 6 gobolba waxay ku leeyihiin xarumo xirfadaha lagu barto kuwaas qayb bay ka yihiin in dhalinyaradii la xoojiyo dhalinyaradii siyaasiyan iyo macnawiyan inay dalkii uga qayb qaataanna runtii waa waxyaabahaanu aadka u xoojino oo ka shaqeyno iminka golaha yagan cusub ee 8aad waxaa iminka gacanta ku haynaa qorshihii heer qaran ee dhalinyaradan dhibaatooyinkan faraha badan lagaga saari lahaa qorshahaasi kolleyba wuxuu ku xidhnaanayaa hirgelintiisu sida ay dowladdu mar walba u qaabishay ee nagala shaqeysayo iyadana qayb ka ahaanaysa guushiisa marka qorshaha insha allah waxaan ku rajeynaynaa in xitaa warbaahiyahan hay-adaha iyo waxaan intaan ka baxno resourcekeena ama hantideena ayna dhex taala ee bulsheed inaan kaga baxno baahiyaheena